haddaba haddii waqtigu yahay nolosheena waxa uu qiimaha badan maxay dadka intooda badani waqtigooda u lumiyaan marka aan eegno dadka waaqicooda waxaan helaynaa in laba arrimood oo ay door weyn ka ciyaaraan luminta waqtigooda waana habdhaqankooda iyo caadooyinkooda adiguba haddaba dhagaystaha sharafta lahow inaad shay aaminto waxaa saldhig u ah laba arrimood oo waaweyn kow labada waalid oo ah had iyo jeer waxa ay kaaga sheegaan waqtiga iyo qaabka ay ka aaminsan yihiin la tacaamulka waqtiga iyo sida iyaga laftooduba waqtigooda ugu faa'iideysanayaan labo dadka kugu hareeraysan qaraabadaada jaarkaaga saxaafadda iyo guud ahaan bulshada aad ku dhex nooshahay haddii aanay ahayn qaar waqtigu ahamiyad weyn la leeyahay taasi waxay ku dhaxal siinaysaa inaad adigu ku noolaato nolol aan qiimo siinin waqtiga iyo ka faa'iideysigiisaba